waxaa mid kale ay ku doodaysaa in ay iyadu leedahay dhulkaasi badda ku yaala, waxaana lagu sugayaa maxkamadda caalamiga ee ICJ in ay go-aan ka gaadho. haddaba jawaabta Kenya ay dhowaan bixisay iyo murankan halka uu ku dambayn karo waxaana la falanqaynaya oo khadka telefoonka si toosa ugu jira Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhiga jaamacadda Minnesota ee dalkan Maraykanka, haatanna ku sugan dalka Koonfur Afrika. Professor Cabdi, waxaad bal faahfaahin naga siisaa xurguftani halkay salka ku haysaa? walaal gunteedu waxa weeye qaynuunka adduunka ee badaha ayaa dhigaya labada wadano jaarka ah ee badna wadaaga laynka u dhaxaynaya sida loo dhigayo iyo halku marayo. marka masalan haddaad eegtid kaasoo xadka Soomaalida iyo Kenya u dhaxeeya ee badweynta Hindiya siduu u gelayo badda laynka xadka dhulka ka imanaya ayaa lagu qiyaasayaa. markaas waa wax aan muran geli karin markay noqoto xisaabtan la dhaho geometriga marka la qiyaasayo meeshuu halkaasi marayo uu sharciga adduunka dhigayo. marka Kenya waxay ku dacweysaa in si loo dadbo laynkaa labada wadan xeebtooda biyahooda kala qaybinaya. Soomaaliduna si kale ayay doonayaan. marka sharciga adduunka raacdidna Soomaalida ayaa saxsan. waayo masalan haddaan tilmaam walaal ku siiyo, waxa weeyaan xadka u dhaxeeya badda Tanzania iyo Kenya u dhaxeeya haddaad eegtid waxaad arkaysaa sidii sharciga adduunka u dhigayay in loo dhigayo. oy Kenya hay dhulka imika Soomaali ka sheeganayso dhul lamid ah ay ka sheegan lahayd Tanzania, laakiin sida Tanzania dawlad xoog leh oo sharciga taqaan ayaa joogta. markaa taa kumay soo saqajaamin xadka sidii sharciga ahaa ee caalamka adduunka qaynuunkiisa baduhu dhigayo ayay u dhignaan. laakiin sida waxay arkayaan Soomaaliya meel bay lahsan inay tahay oo dawlad weeqan hay joogta hadayba jirtaba. markaa inay ka faa'iidaystaan intaan sharcigaba la isla gaarin inay hanjabaad iyo gurgurtan wax ku dhamaystaan oo la dhaho hayna intaba kala qaybsano meel dhexdhexaad aynu isku nimaadno. taa haddii la sameeyana Kenya macaashisa Soomaalina way khasaaraysaa walaal. waatay, laakiin waxaa la isweydiin karaa arrintan maxaa iminka soo dhaliyay maadaama Kenya iyo Soomaaliya weligoodba ay daris ahaayeen, iminka maxaa soo cusboonaysiiyey? walaal waxa weeye dacwadda Kenya ay ku dacwadayso waan akhriyay. waxay leedahay markii sharcigan adduunka lagu heshiiyey waxaa joogtay markaa wadanka Soomaalida dawladda militariga ahayd Maxamed Siyaad Barre madaxda ka ahaa. dawlad lagu soo saqajaami karo ma ahayn markay noqoto amuuraha caynkaas. intii ka dambaysana dee dawlad la-aan baa jirtay. markaa waxyaabahay waraaqaheeda ku xishiso dawladda Kenya waxa weeyaan waxaa nuu soo gudbinay koranaysaa dawladda Soomaalida 2005 dawlad rasmina Soomaaliya kama jirin. tii Cabdullaahi Yuusuf madaxda ka ahaa ayaa markaa unkamasay. marka waxa weeyaan anigu sidaan islaahay waxa weeyaan haddii sharciga la raaco labada wadana way ka heshiin karaan, laakiin haddii sharciga la raaco waxa Soomaali ayaa badinayso taasi waa geedka go-an haddaan dee mucjisad kala dhicin. markaa Kenya waxay arrintan iminka u dedejinaysaa waxa weeyaan si ay xoog u saarto cadaadis dawladda kooban ee itaalka daran xamar fadhida een wadanka intiisa badan ka talin. hadday taa ka gashatana waa lagala soo noqon karaa ashkatadii dawladda Soomaalida iyo dadka Soomaalida ay geeyeen maxkamadda adduunka ee magaalada Xiig ku taala. laakiin dawladda Soomaaliya sidaan ognahay dacwad bay wadaa intii ay dadaalaysana dacwaddaas culayskay saartay. marka maxaa lagu dhaliili karaa dawladda? dawladda waxa weeyaan inay fahamto dawladda Soomaalidu taariikhda dadka iyo taariikhda dhulka in la fahmo weeyaan. marka haddii wax lagugu soo sheegayo Kenya wax sheeganayso waa in looga jawaabi karaa oo dad culamo ah oo khibrad taariikhda wadanka u leh oo waxana fahamsan inta lasoo ururiyo marka horena la dhigo gaashaanka masaa loo dhigo. laakiinse waxa weeyaan iminka damaca Kenya ayaa waxaan keenaya damac Soomaaliyeed ma jiro oo Soomaali maanta ma damacsana dhulka Kenya leedahay sharciyan hay u leedahay ma sheeganayso. marka damaca Soomaalida weeyaan iyo dawlad Soomaaliyeed oo ay fahamsanayn hawadii Soomaali waxay ahayd qabkii Soomaaliyeed wuxuu ahaa xaqii Soomaaliyeed wuxuu ahaa marba iyadu khalad kale keenaysa oo lagu weerari karo iyada walaal. waatay Professor Cabdi, Soomaaliya iyo Kenya waa laba dal oo darisa, waxaana jirta in Kenya ay ka dhawaajisay in dalalka caalamku ay intan wax ka yar ku dagaalamaan. waxaana sheegtay Kenya in xuduudii uu gumaysigu jeexay ay xaq u siinayso Kenya iyadoo cuskanaysa in dalalka Afrika ay ku dhaqmaan xuduudihii uu gumaysigu jeexay. sidee markaa loo fahmi karaa hadalka dawladdaas Kenya? waxa weeyaan waxa la oran jiray Soomaalidu waxay tirahaa maxaa mahmaariga baxsatee
qaylada orgiga maahe waxa weeyaan birka soo socota weeyaan. hanjabaad waxaa loo leeyahay ciidan soomaaliyeed maanta soomaali daafici karaa ma jiro. haddii dagaal dhacaana waxa weeyaan de imikaba gobolada jubbooyinka Kenya ciidamadeeda ayaa jooga. marka waxa weeyaan khayr mas-uulnimo dawladda Kenya arrinta ay ku dhawaaqday waxa weeyaan iyadoo wixii sharcigii adduunku jiro oo maxkamad la isla tegay oo maxkamadii tiri waanu qabananaa wax dagaal keenaba ma jiro waayo Soomaali maanta kusoo duulisa Kenya ma jirto. tan kalena waxa weeye walaal haddii taariikhda dib hadu raacid waxa jiray masalan mar aadan cabdullaah Allah yarxamo aadan cabdullaah cusmaan madaxweynihii hore Soomaaliya iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ra'iisul wasaarihii iyo Jomo Kenyatta wadaadka inuu maanta jooga Nairobi aabihii hay isugu imanayaan magaalada Arusha uu dhexdhexaadinayo madaxweynihii hore dalka Tanzania President Nairobi. markaasaa doodii ka dhacday haddaan in yar kaaga taabto waxa weeye Kenyatta ayaa ku oranaya aadan cabdullaah Cabdirasaaq annagu waxaanu nahay wadan qabaa'il ku noosiyo waxa jeeda kukuyada iyo masaayigii iyo kalinjiinkii iyo waxaasaanu kala iyo Soomaali haddii aanu mid qura sii deyno waanu kala baaba'ana markaa naga daabu ku yidhi aadan oo arrintaasi aadana jawaabtiisa waxay noqotay ma annagu de qabaa'il mayna qoomiyad baanu nahay Soomaalina dhadho markaasi de waxa weeyaan dalkayagii baad haysataan isticmaalka ingiriiskuna wuu ogolaa inaad naga haysataan oo waa kii 1963 intana gobonimo Kenya qaadan afti laga qaaday dadkaasi kii ingiriisku ka qaaday boqolkiiba 70 wax ku dhow ilaahan Soomaali baan doonaa inaan ku darsano dabadeedna aftida muraadiga hay'ad iska ilooy marka Kenyatta waxaan jawaabayay ku yidhi aadan haddaad arrintan naga deen weydo annaguna waxaanu sheegan doonaa Jubbaland oo Talyaaniga ingiriisku ku wareejiyo aadan markaa inta qoslin buu ku yidhi walaal waxaan jeclaan lahaaba labada gooboodba si ay noola wada dhaqano NFD-na aftiha laga qaado jubbooyinkana aftiha laga qaado meeshay dadku doortaan han marno Kenyatta wuxuu ku jawaabu garan waayo waayo wuxuu ogaa haddii NFD horena waa looga qaaday jubba haddii laga qaadana inay Soomaali doonayaan buu ogaa markaas waxa weeyaan taariikhda caynkaas dad fahamsan oo ku xeel dheeraaday oo qarnimada iyo danta dadka Soomaaliyeed si xaqa u daafaca ma yaalaan maanta qolinta dawladda ku ay sheegaan magaalada Muqdisho marka diiladu wacanka arrinta laakiin si Kenya helada hadda wax ka yar baa la isku laayay waxaan waa jariimad weyn oo Kenya ka jawaabi doonto haddii maxkamadda iska tago watay waxa la isweydiin karaa Soomaali badan baa ku nool dalka Kenya gaar ahaan haddii kuwa qaxootiga iyo ganacsato hanti badan baana ka taala arrintaasi sidee u saameyn kartaa haddii xiisadu sii xumaato waxa weeye de horta ciidan Soomaaliyeed oo Kenya ku soo duulaya ma jiro marka wax dad masaakiin oo qaxootiya loo farafareeyo sharciga adduunkana wuu dhigayaa jamciyadda quruumaha arrinta way ogtahay ma jirayso dadka Soomaalida ee laakiinse wadaniyiinta Kenyankana waxa weeyaan waxay leeyihiin dad mas'uula oo baarlamaanka ugu jira iyo dad dibadda baarlamaanka ka jooga marka kuwaasay tahay mas'uuliyadoodu inay iyaga dadka Soomaalida wadankaas wadaniyiinta inay daafacaan haddii dad Soomaaliyeed oo hanti kale ku haysta jiraan oo ahayn wadaniyiin laakiinse deganaansha Kenya ku haystana waqti baa la siin karaa loodan doonaa deganaanshihi baa nagala noqonay naga baxa laakiinse waa inay fahamtaa dawladda Kenya lacagta Soomaaliya ka soo gasha ama ka soo gasha imika 30 sanadood dhow dhaqaalaha Kenya cirka ayay geysay magaalada haddaad aragtid Nairobi dhismayaasha ka socda magaalada meesha iyo magaalada town ka balada ama magaalada bartankeegaba dad Soomaaliyeed oo fara badan ayaa hanti fara badan oo shaqaale laga helo marka way wiiqi doontaa Kenya hadday iyadu waxaan danteeda ahayn ku dhawaaqdo laakiinse kuwa xamad dawladda sheeganayana waa inay toosaan oo dadkii Soomaaliyeed raadiyaan si la isugu dib dhaco watay xiisadan haddii sii socoto labada dal saameyn intee leeb ku yeelan kartaa dhaqaalahooga iyo bacmishtarkooda iyo noloshooda ta ugu horeysa waxa weeyaan haddii la dhaho horta nasiib darray noqonaysaa wax la isku laayay maanta meeshana yaalo maxkamad ayaa adduunka wixii loo geeyey maxkamadaadna waxa weeyaan wixii ay soo goyso Kenyana way ku qalan tahay Soomaalina way ku qalan tahay marka waxa weeye wax la isku dagaalaa maanta ma jiro waa laba dal oo Afrikaan oo walaalaha oo loo baahan yahay sidii xaq u ahaa inay u wada dhaqmaan in la isku hanjabin talabaadna waxa weeyaan haddii dagaal iyo xaasil la keeno ama rabshado badan yimaadaan waxa ugu horeeya manaya waxa weeyaan jaadka in la iska joojiyo jaadkana waxay $100 milyan ayaa sanadkii kasoo gala haddayna ka badnaynba Kenya horta boqolkaa waa lagu waayaya iyo wax ka badanba maalintii waxaan malaynayaa 20 iyo la igu yiri diyaaradood iyo wax lamid ah mise wax ka yar ayaa jaad keena jaadkuna wax nafaqo Soomaali geliya inuu baabiyo mooyaane marka waxa la mooyay dan inay ugu jirto in jaadka horta la iska joojiyo
ta labaadna waxa weeyaan ciidamada kenyaanka ee jooga ee soomaaliya mushahaara ayay ku qaataan ayna kenya ku qaadan taasina jugta ugu horreysa waayo waxyaabaha kenya ay u dhoofiso soomaaliyana meelo kale laga soo dhoofsan karaa marka wax dan oo kenya dagaal ugu jirtaa ma jirto haddii maxkamaddu haygoysana xataa hadday dhulka dagaal ku qabsadaan hadda waxa weya sharciga adduunka ayaa qabanaya waa la iska kicin karaa walaal markaas